magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ahayd magaalooyinka sanadihii dambe sameeysay kobaca dhaqaale iyadoona ganacsiyada kala duwan ee magaalada Laascaanood ka sameeysay horumar aad u ballaaran kuwaasoo ay sameynayeen dadka ka soo jeeda gobolka oo iskugu jira qurba joog iyo guda jooga sameynayay goobo kala duwan oo ganacsi wala magaalo isku xidha koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya sidoo kale waxay ahayd xilliyadii labadii gumaysi ee Ingiriiska iyo Talyaaniga waxay u ahayd magaalo istiraatiijiyad muhiim u ah ganacsigu waa dhaqaalaha kaliya ee deegaanku ku tiirsan yahay mana jiro ila dhaqaale oo kale sida dekado garoomo oo dhaqaalaha deegaanku ku tiirsanaan karo ma laha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ganacsiga yaryar ayaa waxa kaliya magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada ay ku tiirsan yahay una ah nafdhabarta nololeed ee bulshada ku dhaqan caasimada gobolka horumarka ay sameynayso magaalada Laascaanood sameynaya horumar aad u ballaaran anagu ka shirkad ahaan Sahan Group waxaanu ka shaqeynaa transportation-ka iyo qaybta cargo bulshada waxaan ugu adeegnaa si hufan oo ay raali ku yihiin iyadoo aanu dadka aanu si wacan ugu shaqeyno oo aanu u adeegno oo aanu geyno guri ta guri iyadoo dadku alaabta cargo-ga ay u baahan yihiin aanu u fududayno oo aanu uga dhignay hadda gee oo hadda qaado ay tahay oo aanu ka soo qaadno 12 habeenimo halkana 6 subaxnimo aanu u keeno oo baahidii loo qabay dadku inay alaabtu 6 cashay ay qaadato aanu uga dhignay hadda gee oo hadda qaada Laascaanood Burco Hargeysa Garowe intaba waan ku shaqeynaa dadka iyo gaadiid iyo alaabta waxaan ku kala qaadnaa gaadiid kala duwan alaabta waxaan u sameynay baabuur cargo-ya oo hadda aanu keenay cusub iyadoo aanu waliba si laabanno aanu u kordhinayno adeega cargo-ga sanadii hore ee dadku raaci jiray baabuurtan iyo sanadda hadda la joogo farqi intee leeg baa u dhaxeeya si maxaa horumar intee leeg laga sameeyay dhanka gaadiidka kala duwan baabuurta ka qaaday farqi weyn baa u dhaxeeya markii hore waxaanu isticmaali jirnay baabuurta dadka baanu alaabta saari jirnay iminka waxaan u sameynay baabuur gaar ah oo soo qaada alaabta oo cargo-ga ah iyadoo waliba aan u sii badinayno oo uu naga xidhay baabuurtii noo soo socotay karoonuhu ay iminka imanayaan iyadoo aanu gaadiidkii hore aanu casriyeynayno aanu ka saarnay kuwii hore noo shaqayn jiray aanu keenay kuwa casriya haddana ay noo soo socdaan kuwa cusub oo dadka raali gelinaya oo raaxa leh oo dhammaystiran hadday AC noqoto hadday kuraas noqoto hadday baylkii noqoto wax walba ay u dhammaystiran yihiin goboladaas oo dhan xafiisyaanu ku leenahay waanuna sii laabanaa haddii lahayd degan golis waxaan kula degan Salaam Bank labadaba asa mas'uulkooda anahay golis iyadu waxay qabataa adeegyada dadka sida internetka iyo scratch-ka anagu weelada sim card-ka adeega xawaalada adeega taajka adeegyadaas waa adeegyada shirkadu qabato Salaam Bank isagu waa bangi hadda u adeega dadka waxyaalaha u badan qabtana waxa kamid ah saving horta in dadka helaan lacagta horta meel ku saf gareystaan oo dadku guryaha iyo jeebabka iyo meel lacagta ku lamoso oo awal khatar ah dadku dhiganaya waxa laga yaabaa qofku inuu musharax hoostiis lacag gashado dadku meel guriga ku saf gareystaan qasamada ma taalo inuu doorar intuu qaato musharax hoostiis gashan jiro waxa laga yaabaa inuu boorso iskaga rido dayacan marka bangigu horta wuxuu dadka u sahlay in ay yeeshaan wax la yiraahdo saving account saving account-gaas labo kala baxa oo current account ah mid furan iyo mid saving account ah account qofka kii wax saf gareysanaya ama kidaha ama mushaarkiisa wax ka jarahaado waxa lacag u saf gareysanaya ilaa inta uu haduu macallin yahay haduu qof yahay wuxuu iska xidhaya sanadka wax qaadan maayo qofkii isticmaalaya account socdana account-kiisa u furnaanaya account waxa kale la sameeyaa wax la yiraahdo corporation ama company account-ooda loo sameeyo loo furaa waxaan kala sameeynaa lacagta dibadda loo xawilo oo dibadaha caalamka bangigu waa international inuu dibadda lacagta u diro waxaan kala sameeynaa adeegyada inaan sameyno muraabaxo iyo mushaarako labadaba
iyo adeeg kale mudaaraba la yiraahdo laakiin muraabaxada ugu badan hadda waxa lagu tacaamulo dadka in la maalgeliyo shay loo maalgeliyo shayga marka loo maalgeliyana qofku inuu fikrada keeno wuxuu ay iibsanayaan baahidu ay tahay baahida jirta wuxuu uga soo baxayaan shaygaas marka in qofkii mas'uuliyadda damaanadeed loo yeelo kadibna lacagtii sanad iyo badh 2 sano 3 sano oo retainkiisa laga soo celiyo installment markaas ay bixiyo marka adeegaasina waa adeeg bangi ku sameeyo oo runtii bulshadana wax badan u taray waxa laga yaabaa intaas milyan dhowr milyan in la geliyo sanadkii oo muraabaxada ay gasho iyadoo waliba dalka uu jiro riski badan iyo khataro badan ku gadaamay yihiin sana bangi wuxuu ku dhiirtaday inuu adeega dadka siiyo oo khatartaas uu bareeray si bulshada uga faa'iido qof baa wax ka xidhan qof baa lacag haysta qof baa fikrad haya wixii baa la soo geenayaa wax baa laga abuuray marka taas waxay keenaysaa qofkii ganacsi doonaya mas'uuliyadna haysta inuu wax bilaabi karo waxaa marka hadda jeer aan ku dadaalaa inaan dhiirigelino wixii dhalinyaro ama wixii fikrad macquul haya inay insha Allah taala ka faa'iideystaan dalkuna meesha fursada ugu badan taale hada dawlad cidina lacag ma saysan laakiin dalka ugu muhiimsan waxa weeye fursaduhu ay yaaleen laana adduunka kale waa la maalay fursadaha waa la qaatay laakiin waxa maanta fursad ku banaatay waa dalka ninkasta magaaladiisa ku fursad ma ka banaan marka waxaan ku dhiirigelinaa dhammaan bulshada gobolka dalka dawlad meesha joogaan inay ka faa'iideystaan oo insha Allah dadkooda oo faa'iideeyaan iyagu ka faa'iideystaan noocyada maalgelisaan ay noqon karaan waxaan maalgelinaa noocyada maalgelinaa waxaa ka mid ah guryaha waa maalgelinaa dhulka waa maalgelinaa business small businesska waa maalgelinaa hadda qofku meherad leeyahay meheradiisa horumarinayo oo ku yaryahay budgetkii ay meheradu haysatay oo meherada ku yar lacagtii lacag loo maalgelinaya si meheradiisa kor ugu soo kacdo meherada fursad bay haysataa xoolahan maalgelinaa qofka hadda geel doonaya aan ka sameeyo geela waa maalgelinaa beeraha iyaga ku dhawada kula dadka beeraleyda oo laga qaataa maalgelin ay beeraha ku horumarsadaan sektoradaas oo dhan qaybahaas oo dhan waa maalgelin petroleum gobolka Sool anigu waan magacay Shaafici Cabdirasaaq Maxamed Faarax ana wuxuu gudoomiyaha gobolka Sool ee Haas Petroleum waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba haddaan inta ka gudubno waxa weeye wareysigiina waxa weeyaan qaabka aan weydiisay waxa weeyaan ganacsiga gobolka annagu barnaamijka aan ka shaqeynaa waa fuelka iyo lubricationka iyo gaaska oo LPG-ga waxa weeyaan shidaalka gobolka boqolkiiba boqol waxaa keenta shirkadda Haas Petroleum waxa weeyaan dhammaan gobolka dhan waa noo macaamiil waxa weeye retail ahaan iyo wholesale ahaan baan u keenaa gobolka lagu isticmaalo waliba gaar ahaan gobolka Sool waa saliidda Haas Petroleum saliidda Haas Petroleum waxa weeyaan iyadu waxay ka shaqeysaa gobolka sidoo kale waxa weeyaan waxaan keenay gobolka adeega cusub ah waxa weeye gaaska oo LPG-ga LPG-guna waxa weeyaan waa barnaamij kamid ah waxa weeye Haas Petroleum marka waxa weeyaan annagu qaabkan u shaqeynaa nidaamka haddaan intaa ka gudubno waxa weeyaan gobolka waxaan ku soo kordhinay waxyaalo fara badan oo ka mid ah waxa weeyaan gobolka bilicdiisa oo kale waxa weeye kor baan u qaadnay waxaanu sameynay shaqo abuur tusaale ahaan saad aragtaan hadda waxa weeyaan stationkan keliya ee Haas Petroleum waxaa ka shaqeynaya shaqaale gaaraya waxa weeye shaqaalaha ka shaqeeya ee gobolka waa ilaa labaatameeyo oo halkaas waxa weeye fursad baan uga aragnay dhalinyarada waxa weeyaan gobolka waxa weeye waxaan nidaamka shirkadu u samaysan tahay waa si standard ah oo caalamiya waxa weeyaan waxaanu kaloo sameynay inay dadkii aan markii hore waxa jirtay gobolka in la isticmaalo shidaalka fuustooyin guryo la dhigo riskiga badnaa marka taas anagoo ka duulana waxaanu sameynay shidaalka inaanu dadkii u jihayno dhinaca safety-ga oo tusaale ahaan shidaalka in ahaanihii la aaso waxa weeyaan oo la isticmaalo fuustooyinka laga guuro oo dhinacaas noogu soo qaadnay marka guud ahaan gobolka waxa weeyaan
waxaanu ka shaqaynaa waxyaalaha horumarka sida waxa weeyaan arrimaha horumarka ee bulshadana waxa weeyaan mar walbaaba wixii soo kordha ay noogu yimaadaan ay noola yimaadaan shacabku dhalinyaradu noola timaado wadaadadu noola yimaadaan xagga caafimaadka department kasta oo waxa weeyaan bulshada iyada laftigeeda waa taageernaa marka waxa weeyaan anagu nidaamka gudaha laga qabto kaalinta waxa weeyaan waa supermarket waxa weeyaan maxaan ku dhahaa restaurantigi waxa weeye waa car washki marka iyaguna waxa weeyaan si habsami leh oo standard ah ay u shaqeeyaan special waliba xagga car washka oo kale waa adeeg waxa weeyaan bulshada marka horumaysan heli jirin meel waxa weeye gaariga ay geystaan oo ay gaariga adeegiisa oo dhammaystiran ay ka helaan marka taas waxay keentay in oil changegii loo sameeyo in wheel alignmentigii loo sameeyo in loo sameeyo maxaan ku dhahdayay dhammaan adeegyadii uu gaarigu u baahnaa waxa weeyaan qofkii oo waxa weeyaan gaarigii shidaalka loogu shubay gaarigii loo dhaqay gaarigii loo checking loo saaray oo waxaa loo yaallaa wheel alignmentigii oo gaarigii mataqaanaa checkingkii la mariyey waa full surface loo dhammaystiran ayaa ka baxay kaalmaha 100% waxa weeyaan kaalmaha gobolka shidaalka waxaa sablay gareeyaa shirkadda Hasbro waa maamulaha shirkadda qalabka dhismaha ee Wadajir haddaan warbixin yar idin ka siino ganacsiga gobolka si guud ganacsiga gobolka si guud aad buu xawligiisu u kordhayaa hadday ahaato dhismayaasha hadday ahaato meheradaha la furayo hadday ahaato wadooyinka dhammaan ilaahay mahadii wax walbana waxa ka aakida oo horumarkan keenay waa nabadgelyada saacad ku noolaanayso iyo guud ahaan gobolka Sool xaaladihii jiray markii laga baxay gobolka oo dhan maanta waxaan moodaa in wadada horumarka oo cagta saaray waana wax ilaahay loogu mahadnaqo marka koowaad marka labaadna maamulka gobolka iyo ka degmaduba ay mahadiisa labaad ay leeyihiin inta marka ka gudbo ganacsiga magaaladu aad iyo aad buu u korayaa tusaale ahaan hadday ahaato transactionada dhacaya magaalada isbedelada ganacsi waxyaalaha lagu soo kordhinayo shirkadaha anoo ka shirkad ahaan shirkadda qalabka dhismaha Wadajir muddo hadda 7 sano ku dhow baanu jirnaa gobolka degannahay waxyaalaha aanu ku soo kordhinay gobolka waa qalabka dhismaha waanu dareemi karnaa horumarka gobolku waliba base u yahay dhismuhu aad xawligiisu korayo haddii ahaan lahayd gadashada alaabta iyo macaamiishana door weyn baanu ka qaadanaa iyo dhismaha horumarinta gobolka inta marka ka gudbo dhammaan waxaan u baaqayaa bulshada gobolka Sool iyo gabi ahaan in ay dalkooda ku soo noqdaan waxna gashtaan investment sameeyaan maalgelintaasi horumarka gobolka bay ka sii qayb qaadanaysaa indhahooda ay soo eegaan gobolkoodii iyo horumarka ka socda waxba iyadoo la eegin xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jira waxa ka muhiimsan horumarka magaalada iyo shaqooyinka ka socda intaasna waa ugu baaqaya dhammaan gobolka Sool hadda branchyadeedu way badan yihiin laakiin Laascaanood waxaanu ku leenahay hadda branchigan oo ka kooban ugu yaraan 8 store ka kooban laakiin waa kaydad hadday ahaan lahayd shaqaalaha noo shaqeeyaana dawad dareemi kartaa waxaanu sameynay shaqo abuur fiican ugu yaraan maalintii waxaa noo shaqeeya marka ugu yaraado ilaa 20 qof oo shaqaalaha kuwa dhayliga noogu yimaada iyo kuwa bermontaliga aba joogtada aba isku jirahan marka waa shaqo abuur fiican oo aan fili karno inaan ku soo kordhino gobolka Sool waa Walaal Cabdiraxmaan Axmed waxaan ku suganahay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool halkan hadda aan ku suganahay gaar ahaan waa Carwo Turkish 2 qaybta labaad ee Carwo Turkish 2 waxaan ka shaqeynaa qaybaha kala duwan ee dharka waxaan ka dalkanaan ka sheegaynaa in intaqana magaalada Laascaanood ganacsigeedu bariyahan aad u fiican yahay isla markaasina uu horumar sameeyo sanadaha dambe adigu xilliga soo bilaabo 2017 ilaa hadda uu marka dambe sii korayo marka hadda laga eego kolay dhinacan ganacsiga aan hadda faraha kula jirno ganacsigan dharka oo kale aad iyo aad u fiican yahay kaliya
fadhiistaan shaahaan waxa la yiraahdaa seexdaan khadkooda internetkooda isticmaalaan kaliya aysan u soo koobin ay maxay dhalinyartu ay isu taagaan inay shaqaystaan waxa la yiraahdaa ay ganacsi abuuraan iyo horumar ay ku soo kordhiyaan bulshada qolada jaaliyadda waxaan leenahay waddankiini waxa la yiraahdaa wada jeedaan waddanku wuxuu u baahan yahay waxa la in la maal gashado waxa la yiraahdaa waddanka nimcada ku duwan waxa la soo saaro marka aad baan u soo dhaweynaa jaaliyadda qolada jaaliyadda waxaan leenahay waddankiina maal gashada herdan waxaa dhahaa Seven Rooms Cafeteria locationka ama booska ku taalo waxay u dhaxaysaa Masjid Huda iyo Atash sakada labaad dhanka Huda marka laga yimaado iyo sakada labaad marka laga yimaado Atash magaalada Laascaanood baahiyaha lagu kalifay meherada inaan furno waxaa kamid ah xaafadan dixjan oo aan lahayn meel yani standard fiican oo la fadhiisto sida inay leedahay qolal maadaama ay dhacso dabal xaga oo kala dhacso meheradan waxay leedahay ka kooban tahay Seven Futures magaca ka garanaysid Seven Rooms 7 qol waa qolkan aynu joogno waa qolkii shaqada ku socotay 6 qol ee kale customerska loo talagalay inay fadhiistaan waxay u kala qaybsan yihiin rag iyo dumar si especially qolal dumar ku leeyihiin baa ku jira waxay kaloo leedahay meheradu baakin fiican oo la fadhiisto galabtii iyo habeenkiiba oo leer leh baahiyaha ugu waaweyn ee aan ka qabtirano ummadda waxa weeye sharaabada standardka fiican cuntooyinkii labada nooba cuntooyinka fudud iyo kuwii kalaba meheradu waxay shaqaysaa 5 subaxnimo ilaa 12 habeenimo waxaa kaloo inoo yeelay mashiinkii shaaha oo isna intaas meheradu shidan oo waqti walba available waxaa kaloo inoo yeelay mashiinkii askarenka oo dhammaan adeegyadii kala duwanaa qaybihiisa kala duwanaa laga helayo sidoo kale meheradu waxay inoo haysaa oo ka helanaa sharaabadii qaybahoodii kala duwanaa kuwii moorka ahaa iyo kuwii qastaanka ahaaba iyadoo lagu sameynayo laguna adeegayo sida ugu hufan ugu wanaagsan loona qancinayo macaamiisha yani dalabkooda waxaa kaloo jooga meherada shaqaalaha furfuran oo adeegaya xilli kasta ay dalbadaan inta meheradu ay furan tahay soo dhawaadaan leenahay macaamiisha Seven Rooms Cafeteria gacmo furan mid ku soo dhaweynaysa macaamiisha si waxba loo qancinayaa welcome ganacsatada gobolka Sool waliba qaybta qudaarta siiba qaraha shirkadda qaraha ee Albaraka 99 baa horta halkan iska salaamaysa waxaanu leenahay dadweynaha gobolka Sool qaru faa'iido badan uu leeyahay baa jirta waxtar badan uu leeyahay baa jirta oo waliba xagga dawaayidka waxaanu ka codsanaa dadka hantiilayaasha ama shirkadaha anaga oo kala nala midka inay beeraan oo nugaashan laga beero oo magaalada Hareeda laga beero way bardheeli $1,000 baanu shubnaa aan koonfur u shubnaa lacagtaas waxaanu ka keenaa ilaa Beledweyne Jawhar ilaa Kismaayo hadii halkan dhoweedo halkan waa xaleeda waa ganacsiga doqoma garatada weeye dadka waxaan ku baaweyn lahaa war hadii xoolihii iskaba fataxumaadeen war hal iska beerta dhulkiina wixii caalamku waxa islaamnimada iyo dadka masaakiinta aan taakuleynaya wax tare karayna war soo dhaweynaa maal gelinaya anu imika 2 beerood baa sameeyay marka hadii la ku reeyay imika siidkooda soo baxeen maalgelin baan dhowr jeer codsanay cid nagu maalgelisa ma hayno mid maamul ma hayno mid hay'ad ma hayno mid federaal ma hayno mid cidna maalgelisa toona ma hayno qaraha u bari ibsaamse wax kala waa qaraha cambaha iyo qudaar mooska oo kala nooc ah oo waxa kamid ah midhatoonkii oo waxa loo yaqaan hobhob kuwana waa sabiibtii hadii la ku reey ganacsigu waa iminka qudaarta moodayna kala go'anta Ethiopia bana waashay marka Ethiopia wixii laga maarmi lahaa waa dhul kale ku yaalaan nimanka magaalada ka mas'uulka haw hadlaan dadku hayraan dadka la maalgeliyo bulshada waxaan ugu baaqayaa warbajoogta waxaan ugu baaqayaa war anaga dadkayga inka beeraha beeranay in la maalgeliyo oo dadka wax tar lagu siiyo beeraha oo ama yimaadaan oo magaaladooda iyo dhulkooda ma gashaan barnaamijkani wuxuu hordhac u yahay barnaamijyo kala duwan aanu ka sameynayno kobaca dhaqaale iyo horumarka ay sameynayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Khadar Tarabi